shabaab iyo ictisaam wax kale isku khilaafeen xukunkuun bay isku khilaafeen shabaabku kharaja min raximi alictisaam ilma galeenka ictisaamka ayuu shabaab ka soo baxay annagaa garanayno isku xubni ahaan jirnay ragga aasaasay shabaabka kaanuu min alictisaam bal ictisaamkana kuwii aasaasay bay ahayn lascaanood ku aasaasay kuwii ictisaamka aasaaskiisa iyo abaabulkiisa u weyn lahaa ayuun baa shabaabkana aasaasay isku fikirna way ahayd intay shabaabku idhaahdaan un bay odhan jireen jihaadkaad diidan tihiin maraykankaad u shaqaysaan waxaas xukaamtan dawaaqiidaabaad difaacaysaan xukaamtan waa lala dagaalami karaa dagaalkan dhulkan islaamka ka socda gaar ahaan soomaaliya oo kale waa jihaad intaasun bay odhan jireen goormay ayay ictisaamku intaa joojiyeen oo ay bilaabeen inay shabaabka caayaan markay suldada isku qabsadeen ee shabaabku ay ku idhaahdeen doonta annagaa naakuudayaalka ahe xagga dambe ka fuula xataa way shireen waxay idhahdeen waar idinkaa maanta biciidku idinku idiin dhacay hilbaa wax naga siiya bay ku idhahdeen wax laydinka siinaya ma jirte marti edab la noqdo xagga dambe fadhiista bay ku idhaahdeen markii dambe isku dhacu uu sii bilaabmayna oo ati sii batayna qaar iyaga kamida bay laayeen qof muslime dilkiisana waa xaaraano inagu ma banaynayno kuna farxi mayno bal waynu ka xunnahay markaasay bilaabeen in idhaahda waa khawaarij waxay khawaarij ku noqdeen waxaana xaqiiqadu ay tahay waa isku madhab laakiin khilaafaadkaasun baa kala kaxeeyey waana laga tamar batay un olaha ictisaamka iminka xamar hudheel dawladdu ku ilaalisa mooyaane meel kale madaxoodu ma geli karaan imki bixoriya iskama socon karaan waa inay dawladdu ku hoos jiraan laakiin maalinta iyagu tamar helaanna saanun bay u bilaabayaan wadaad ka mid ah oo amiir mar u noqday baa yidhi berigii ay shidnayd arrintii maxaakimtu ayuu yidhi inta nin madaxii isugu yeedhay ayuu yihi shacabku maalintu la raaco aan idin lismayna buuri nin kaleo iyaga kamidina kitaab baabuu ku qoray wuxuu ihi dadka salafka u nisbo sheegtaa dagaalka saddex ugu qaybsameen dagaalkuna waa kaalan ka socda qaar yidhi waa jihaad hadduu jihaadi waa la waday iyo qaar yidhi waa fitna un la soo taagan weligoodba labada waad garanaysaan soo ma iyo qaar leh waa jihaad laakiin hadda waktigiisii baan ahay inaan u yaro nasano marka istiraaxatu muxaarib baa la dhaha waxaan waxbayaa lagugu khaldin intaasoo jeerna way dhacdo taarikhda way soo martay intay yidhahdeen dagaalkii waanu iska daynay haddana inay dib u alooseen waayo wuxuu qofku hadduu fikir ahaan iyo madhab ahaan ugu jiro fursadun buu la sugayaa iyo munaasabad waxa weeyaan usoo marta calaa kulli xaal qolada muwaladiintahay meelahay muctasilada ka shabeeyeen waa